ضبط وقتك خلق جمع رمضان لدي سجى هذا الكيس بده نبي وحولي عليه الصلاة والسلام فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيدي يقللها نبي وحولي عليه الصلاة والسلام ساعد بكتشرته أنا وافق قف مسلمي إسقو تاغنو تكنيه oo ilaahay wax weydiista ilaa ya ilaahay waa siinaya oo waa saacade culimadu laba xadiis ay soo arooriyaan laba meelood baa ku tilmaamaan jumcada markuu minbarku imaamku saaran yahay ilaa ya intu salaada ka baxayo waxa kale la tilmaamaa waqtigan aynu hadda joogno jumcada casarka dabadii ilaa ay ka dhacayso saacad ku jirta waana waqtiyada dhikriga ugu fiican qofku inuu wardiyo بعد صلاة الصبح هداد فريسته أو وردديد إلى عدو كاغا صباحده وهذا اللي برق عدو تكتد وحنا بقول الماما يانا يتهاي محي حجة طامة أبو النبي وكعلي وحج لما يستلم بالي هذا مساجد كسكفر رياض يالتي حج بعد العصرنا السنة وقت يفضي قبضا له هداد ولي عصر الجمعة هدون نغضه ساعة الإجابة علماء الشيء ينبكو جراه ولذلك وحين لنا أزمنة فاضل كا رمضان ودم باكو جرته إن لقى فايدة جمعياش رمضان باكو جرته إن لقى فايدة بعد صلاة الصبح باكو جرته إن لقى فايدة ثلث الليل الأخير باكو جرته إن لقى فايدة قيام الليل باكو جرته إن لقى فايدة ليلة القدر باكو جرته إن لقى فايدة 10 الأواخر باكو جرته إن لقى فايدة وحاصرنا وحلوضة المامية أما حج طعمة أما عمره ودغانتا حجكي نبي محمد مد لا حجay u dhiganta ama dambi la dhaafay ayaa ku soo wada arooray ama bariya la aqbalay idan awqaadka faadilka ee nabigu tilmaamay maalinta arafa kamida awqaadda faadilka ee nabigu sheegay alayhi salatu wasalaam waxa kamida labada aadaan inta u dhaxaysa markuu muadinku aadimo ilaa ya iqaamada inta u dhaxaysa iyaduna waa waqti الدعاء لا يرد بين الآذانين أو بين الآذان والإقامة فادعوا نبي عليه عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود الترمذي إمام أحمد بس صارين شغل من الناس قلت الماميو دعاء لما عليه لبدا آذان لحدوده لبدا آذان وإقامة ضي آذانك نبي عليه الصلاة والسلام ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حديث كان وحو كلو شيغي يا نبي بريادينان لعلنين اما يرتا انت لعليا marka aadaanku dhaco iyo marka jihaadka lagu jiro waxa kale oo kamid ah waqtiyada ducadu ay fiican tahay salaada dabadeed lababa culimadu way ku fasiraan qolo waxay yiraahdaan waa marka aad dhamaysataa taxiyaadka inta aanad salaamo naqsan marka aad taxiyaadka dhamaysataa inta aanad salaamo naqsan culimada bar kalena waxay qabaan waa marka salaada dhamaysato kadib hadaa ducaysato yani ducaa imaam la sugaama jirto aan dadku dareeraynin ilaa ya imaamku duceeyo mooyaan laakiin waa waqti aad iska ducaysan karto waana waqtiyada ducadu fadliga badan tahay nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa lagu yiri أي دعاء أسمع إلهي رسول كيسيو حديث الترمذي ورني وأنا حديث حسن نفس الشيخ الشيخ يالباني أي دعاء أسمع دعاء تبا لو مقل بدنيه ربي وأجيب بدنيه وحنا بقول جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات هبينك برتنك حقي صدام هبينك حقي صدام إيوه صلادها مكتوبات قداشود بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك بالنبي واكي صحابي قلت المامي معاذ بن جبل والله معاذ وان كنت عليه بالنبي عليه الصلاة والسلام ننكا وجعليه ونارتين وجعليه بوحو كويري هكتقل صلاة والبد بدأ دينا تراهدو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنا تراهدو صلاة ندبدأ هكتقل أعماش waxay ku kala fadli badan tahay ayuha alxiba meesha lagu sameeyo oo acmaasha maka lagu sameeyo waa ka fadli badan tahay acmaasha meel kale lagu sameeyo salaada xaramka lagu tukada waa
boqol kun oo salaadood yacni 56 sannadood waxaad tukanaysay hal midoo aad maka ku tukato baa u fadli dhigantaa hal midoo aad maka ku tukanto ayaa u fadli dhigantaa idan maki waa ka fadli badantay madiine waa ka fadli badantay oo 1000 salaadood bay u dhigantaa salaadeedu masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad ku tukato masaajideennani waa ka fadli badan yihiin suuqyadeenna iyo guryaheenna oo 27 darajo ama 25 bay ka badantay haddaad jamaca masaajidka kula tukato ta aad guriga ama suuqa ama dukaankaaga ama hudheelkaaga ku tukatid waxaa ka fadli badan 27 jeer ama 25 jeer ta aad kula tukato masaajidka bale intaad u soo socotaba khudwo kastoo aad soo dhaqaajiso tallaabo kasta wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة بنبي salaadaad gurigaaga masaajidka ku tukataa 25 bay dheertay taad guriga ama suuqa ku tukato hadduu midkiin weysadiisa wanaajiyo oo masaajidka u soo kaco isagoo aan dan kala lahayn tallaabo kasta uu soo qaado dan baa lagaga daadiyaa darajana kor baa loogu yeelaa markuu soo galo masaajidka hadduu tukado malaa'igta u ducaysa inta uu meesha uu ku tukaday fadhiyo malaa'igta u ducaynayso leh allahumma salli calayh ilaahay ow kan u naxariiso dembigiisa dhaaf malaa'igta ugu ducaynaysa qofkii nabigu yidhi inta uu salaad sugayana salaad unbuu ku jiraa haddaad casar markaad tukatay fadhiisato aad tidhahda maqrib baan sugayaa intan aad fadhido salaad baad ku jirtaa inta aad fadhido masaajidka aad iska fadhido waxaad la mid tahay nin tukanayo salaad ku jira baad la mid tahay acmaasheenna waxay u kala fadli badan tahay siday u kala anfac badan tahay dadka tacadiga ay u kala samayso oo qofka dadka hanuunka ugu yeedha hadday hanuunkaa qaataan dee qof wal oo hanuunkaa qaatay ajarkuu leeyahy ajar la mida buu leeyahy maanta imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh cilmiguu ka tegey uu ikhlaas ku daro qof kastoo sidii uu salaada u sheegay intuu cilmigaa ka bartay ku tukaday intii camal ahayd in leeg buu yeelanaya isna haddaad suuqa qabato qof u yeedho tidhaha warkaalay salaada tuko salaada bartid qofkaasi intuu salaad tukanayo tiisi isagu uu leeyahay adna in leeg baad la leedahay intuu salaad tukada in leeg baad leedahay idan acmaasha tacadiga acmaasha gudubta way ka fadli badan tahay acmaasha aan gudbin walidalik bay culamadu waxay dhahaan faraa'idda marka laga yimaado maxaa u fadli badan sunanka alcilmu bay yidhaahdaan maxaa ku xiga aljihaadu maxaa ku xiga addikru bay yidhaahdaan culamada qaarkoodna khilaaf bay geliyaan way isweydweydaarayaan yacni waa acmaal tacadida kuwa kani saa daraaddeed baa laga horreysiiyey dikriga inay ka fadli badan yihiin kayfiyada loo sameeyaa kala fadli badnaysiin karta oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ama qur-aankaba ilahay wuxuu leeyahy qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaada lagu khushuuca way ka fadli badan tahay salaada maxay aan lagu khushuucin salaada markaad ku jirto qalbigaagu soo jeeda waa adagta inuu soo jeedo waa xaqiiqa laakiin musaawala waa mujaahada qofku hadduu sameeyo wuu soo jeedin karaa hadduu dadaalo والذيina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana haddaad jihaatanto naf iyo shayطaan la jihaatantid nabigu wuxuu leeya calayh الsalaaةu wasalaam ina alcabda la yuصلي الصلاة wma kutiba lahu ila نصفha ila ثuluثha ila ربعha ila khumuسha xatىa balaga cushurha nabigu wuxuu yihi calayh الsalaaةu wasalaam addoonku wuu tukadaa markaasaan salaada looga qorin nus mooyaane 3 dalooloo dalool mooyaane 4 dalooloo dalool mooyaane 5 meelood meel mooyaane 6 meelood meel ilaa uu nabigu gaadhsiiyey 10 meelood meel mooyaane yacni dadkan safka ku wada jira isku salaad maaha isku ajarna maaha fadiiladii jamaacada waa wada heleen fadiiladii salaadoodana waa heleen laakiin maca dalik salaadooda waa kala badantay
walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahy midna salaadeeda nus buu leeyahy, midna rubuc buu leeyahy, mid khumus buu leeyahy, mid sudus buu leeyahy, mid thumun buu leeyahy, mid tusuc buu leeyahy, ninba in buu leeyahy. kaashiya eg tahay kii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah. waa qaacida caama ah mutaabacadu inay camalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ekaado. qofba qofkuu nebiga camalkiisa uga dhow yahay ayaa camalkiisu ka fadli badan yihi. ilaa nebi moxamed cid gaadhaysaa ma jirto calayhi salaatu wasalaam. acmaasheenna waxay u kala fadli badantahy siday u kala ikhlaas badantahy. ilaahay dartii miyaa mise waxoogaa kaloo wagash-wagashaa ku jira? waxaa laga yaabaa inaad wax bixiso, faqiirku aad ka naxday aada u siisay ilaahay dartii. mararka qaarna waxaa laga yaabaa inaad lagu sheegaba u bixiso. mararka qaarkood waxaa laga yaabaaba inaad u bixiso wariyaad ceeboobina iska sii wax, ilaahay dartii kaama aha, laakiin si xun buu kuugu dhawaa wariyaad ceeboobin unbaad tiri dadka dhexdoodi iska jeedi, gacanta unbaad isaga faafisay. niyadaad wax ku bixisaa intay leeg tahay baa waxa ku xidhan camalka aada samaynayso iyo noocuu yahay. walidaalik kulamaa cibaadadu ay ka fog tahay mubdilaadka, dib baan ka sheegi doonaaye, way ka aqbal dhowdahay ama way ka koraysaa. kulamaa cibaadadu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay xataa niyadu hadday khaalisnimo tahay in lagu gaarhi karo xataa camal aanad samaynin. niyadu hadday sarrayso oo aada mukhlis tahay xataa camal aanad samaynin inaad gaarhi karto. isagoo nebigu jihaad tegey oo soo socda, soo noqday, oo weliba uu ahaa jihaadadii ugu adkaa, ghaswatu tabuuk, wakhtigan arbiciinadu ka dhacan khaliijka baa la baxayay, kulayla oo naftu dad ka baxayso, ayaa rag saxaabada ka midii waayeen waxay fuulaan iyo waxayna iyagoo ooyayay hadheen. markuu nebigu yihi waxaan idinku qaado idinma hayo. dabeetana markuu nebigu soo socday buu wuxuu yihi ina bilmadiinati la aqwaama, magaaladii madiine rag baa jooga aynan dooxa ka tallaabin ilaa inagala tallaabay, waa ynan camal yani wax walo aynu qabanaba inala qabtay. waxay idhahdeen yaa rasuul allahi wahum bilmadiina, ma iyagoo madiine jooga haddana, iyagoo madiine jooga buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. xabasahum alcudur buu nebigu yihi, wa fii bacdi riwaayat xabasahum almarad. yacni way samayn lahaayeene way awoodi waayeen. dee waa kuwii ilmeynayay markuu nebigu ka tegey, camalkaa inay sameeyaan bay rabeen, laakiin way awoodi waayeen. idan biikhlaasihim bay waxay ku heleenba iyagoo fadhfadhiya kuwii soo jihaatamay camalkay heleen oo kaley heleen, iyagoo aan meel laba u bixin. acmaashu waxay ku kala fadli badantahe wakhtiga ay dhacdo mooyaane xaaladda ay ku dhacdo. xaaladda maxaynu uga jeednaa? maalan xaalad loo baahan yahay, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leey aw iطcaamun fii yowmin dii masqaba baa la yidhi. ku wax bixiyey, quudiyey miskiin ama agoon, maalin quudiyey maxay? maalin dee dadku dhulka ku nabayo gaajo ay jirto. dee isku mid maaha markaad baahan tahay. markaad baahan tahay waxaad hesho adoon 3 casho wax cunin, ninka koob shaaha kuu shubaa, koobkaasi miyuu la mid yahay adoo dheragsan koobka laguu shubay? laba kooboo isku mid maaha. markaad qaxdeena baadiyaad joogteen, ninka beris cad ku siiyey, dee beriska cadi uma dhigmaynin hilibgeela maanta hargeysa lagu cuno, waayo waad ka baahi badnay. idan xaaladda lagu sugan yahay na camalka waxbay ku kordhisaa. walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy alcibaadatu fi lharj ka hijratin ilay. marka dadku istilaan u leele waxbaba la kala garan waayo, qofka isagu iska cibaadaysta, cibaadadaasaa waxay u dhigantaa buu nebigu leeyay hijre aniga laysoo hijrooday. fitanka iyo dagaalka iyo beliya baas iyo waxa intu iskaga baxo isagu iska laazimo cibaadadiisa, cibaadadaasi waxay u dhigantaa buu nebigu leeyay ka hijratin ilay, hijre aniga laysoo hijrooday. ama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya bada alislaamu gariiba wasayacuudu gariiba fatuuba lilgurabaa buu nebigu yihi. islaamku gariibnimo ku bilowday, gariibnimadaa hore raggii joogay waataynu hi way ka ajar badan yihiin acmaashoodu ku waqdaba.
qariibnimada ku dambe kuwa joogaana haddii ay camalkii kuwaasi la yimaadeen oo kale la yimaadaan iyana wuu fadli badan yahay walidalik buu nebigu wuxuu ku tilmaamay 50 minkum ajarkood bay leeyihin markaasay saxaabadu yidhaah saxaabadu nebigu wuxuu ku leeyahay qaar xagga dambe joogaa 50 minkum la ajar noqon doona markaasay yidhaah yaa rasuul allahi see ugu jirtaa masaladu markaasuu wuxuu yihi idinku cid idinku caawisa dee dowladdii islaamiga ahayd iyo waxba markaan dhisano waa xooggannahay laakiin kuwaasi wakti aanay waxbaba haysanin oo meel lagu gaaloobay oo balaaya ka taagan tahay bay diinta ku mintideen waxay la mid tahay buu nebigu yihi diinta ay haysteen qof dhuxul daba haysta dhuxul intaad xejin kartaa dee dhuxul gacanta lagu saaro intaad adkaysan kartaa kuwa waktigaa jooga akhiru zamaanka noocaasi ee cibaadada haddana ku dhegay waa kuwa dhuxul daba haysta bay la mid yihiin buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan xaaladda cibaadada lagu sameeyey iyaduna wax badan bay ka bedeshaa oo maalan cibaadada ninka dhallinyaradii sameeya cibaadada odayga way ka fiican tahay soo saa ma ogidin dhallinyarada shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam odayga dembiga lagu sameeyo maalan zinada odaynimada lagu sameeyaana way ka dembi badan tahay zinada dhallinyaronimada lagu sameeyo ولذلك بو النبي عليه الصلاة والسلام وحليه 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدح قيامها إلهي لما هضله وما طاهريه وعذاب كل البيلي صدح دا روام حي وصدح قف أو وحي اللي قفل ليه وحانه الليمي نبي وحليه شيخ زان ودي زينيستي ودي لو رساني بقى اللي قفل ليه iyo inuu dumarka u arko caruurtiisa iyo hablihiisa iyo kale inay la mid tahay iyo inuu dhowrsanaadaan laga filayay shahwo eridaana ma hayso walidaalika isagoo daadaasa haddana haddii loo taag waayo kaasi kuwaan aakhiro guulaysanayn buu ku jiraa shaykhun zaan buu nebigu yidhi wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wacaa'ilun mustakbir buu nebigu yidhi midaan faqiiroo waxba haysanoo kibray dee nin dowlad haysta iyo madaxa iyo lacagle iyo kuwa kibirka waa laga filayaa faqiir hadduu kibro ka war nimaan waxba haysani hadduu kibro oo isqaadqaado kaasina waa waxaan loo filaynin kan waa laga yaabaa nebigu ilaahay qur-aanka waa ku tilmaamaya kallaa ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istaqna bini aadamku waa qooqaaba ilahay waa kibraa markuu arko isagoo kaaftoomay isagoo amarkiisa wuxuu yidhaahdaba la fulinayo ama wuxuu doono samayn karoo lacag haysta laakiin midaan waxba gacantiisa ku jirin oo faqiir hadduu kibro kaasina waa mid subxaana leh idan waxaa la tilmaamayaa waxa cagsigiisii inuu yahay acmaashu hadday ka madhnaato mubdilaadkana way ka fiican tahay acmaashii nawaaqista iyo mubdilaadku la socdeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa baa ilahay kuwa iimaanka laga helayo sadaqooyinkiina ha ku borinina bilmani waladaa manigu waa mana sheegasho gallad sheegasho berigii caynkaa waa nigii waxidin siiyey berigii caynkaasa waa nigii caynkan yeelay kuwaa soo baahan intaasaan siiyey waxaaga haddaad ku mana sheegato camalkii wuu burayaa ajarkii heli maysid haddaad adaa ka dabageyso wax dadka dhibayana erayo xunxun iyo maag iyo wax haddaad ugu darto qofka adigoo wax siinayabana iyana waa kaa duminaysa acmaasha wax badan oo buriyaa jiro aan riddo ahayn مثلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون العلماء waxay leeyihiin riddo maaha laakiin waa muxbit lilcamal مثلا salaadii casare laga tegey waa kii nebigu tilmaamay maalintaa camalkeeday burinaysaa riddo maaha bay leeyihiin qolada aan qabta inaanay tarku salaa inaanay kufri ahayn mid iyo laba haddii laga tago inaanay kufri ahayn qolada qabta waxay leeyihiin riddadii maahay waxa weeyaan maxay waa mubطil lilcamal waa min mubطilaati اlcamal idan waxaynu tilmaamaynaa acmaasha saalixa aad samayso kullama aad ka fogeyso dunuubta iyo waxyaabaha kalena iyana waa wax camalka ajarkii laga helayay badiya waxyaabaha badiya waxaa ka mid a bay culammadu yidhahdaan fadiilatu ijtimaaci اlacmaal bacd alacmaal haddaad maalin isku samayso ay kulmaan
iyana way tiro bataan maxaa ka mid ah haddaad waa barisato adoo sooman maalin hadday isugu kaa kulmaan soon iyo miskiin aad quudiso iyo janaaso aad raacdo haddaad kulmisato soon iyo janaaso aad raacday iyo miskiin aad quudisay iyo qof buko aad soo booqatay afartaa camal haddaad maalin kulmiso nebigu wuxuu leeyahay qof kuma kulanto ilaa maalinta qiyaame waxaa lagu yidhaahdaa jannada albaabadeeda kaa doonto ka gal maantaad soomanayd adigoo sooman baad janaaso raacday xabaalahaad geyso waad soo aastay waad soo noqoto dhakhtarka ama guriga mid yaalloo bukay baad soo booqatay miskiinna waxbaad siisay afartaa camal hadday maalin kuu kulmaan oo aad kulinsisato nabigu calayh isalaatu wasalaam subax buu wuxuu yidhi man asbaxa minkum alyawma saa'iman waar maanta yaa sooman abi bakar baa yidhi aniga markaasuu nebigu yidhi maanta yaa raacay man tabica minkum alyawma janaasa yaa janaaso raacay abi bakar baa yidhi aniga maanta yaa miskiin wax siiyey buu nebigu yidhi abi bakar baa yidhi aniga maanta yaa soo booqday buu yidhi qof buka abubakar baa yidhi aniga markaasuu nebigu yidhi ma jtamacna fii imri'in ilaa dakhala aljanna marka laydin leeyahay abubakar dad buu u fadli badnaa cidna maaha